bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan wanaagsan akhyaarta na daawatay meel walbo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan warbixinadeena kala duwan oo kaga hadlaynay wararka kooxda Barcelona inta aanu gudal gelin warbixinta waxaan idinkugu baaqaynaa inaad subscribe sartan channelkeena Barka 252 una share gareysaan warbixintan idinku soo maqan majalada Marca ee Spain ayaa qortay in difaaca kooxda ee Barcelona ee Samuel Umtiti uu sii joogi doono kooxda xilli ciyaareedka soo aadan Barcelona ayaa qarka u saaran inay heshiis cusub oo 5 sano ah la saxiixato gurhayaha Real Germany ee Marc-Andre ter Stegen waxaana warkan qortay majalada Sport sidoo kale Barcelona ayaa qarka u saaran inay heshiis cusub la gasho gurhayaha kooxda ee Marc-Andre ter Stegen kadib markii horumar laga sameeyay wada hadallada sida ay qortay Sport waxaana ay haatan u muuqdaan inay horumar sameynayaan iyadoo wargeyska Isbaanishka uu sheegayo in qalinka uu dul dhigi doono heshiiska kaas oo dhacayo ilaa 2025 bisha Juun markii la gaaro ter Stegen wuxuu haatan ku shaqeeyaa oo uu kaamil ka qaataa qiyaasii lacag lagu qiyaasay 140,000 oo pound isbuucii laakiin mushaarkiisa ayaa la hubaa inuu si aad u kordhayo marka uu saxiixo qandaraaska cusub 28 jirkan ayaa Barcelona kaga soo biiray kooxda Borussia Mönchengladbach sanadkii 2014 wuxuuna noqday xidig muhiim ka ah kooxda haysata La Liga ayaa ku dhibaatoonaysa inay heshiis la gaarto wakiilka ter Stegen bishii la soo dhaafay laakiin Sport ayaa sheegaysa inay haatan xalinayaan khilaafkooda dhanka kalena Juventus ayaa si cad ugu sheegtay Barcelona haddii Barca ay doonayso in laga iibiyo ciyaaryahanka reer Bosnia ee Miralem Pjanic in heshiiska qayb uu ka noqdo daayarka reer Brazil ee Artur Melo laakiin xidiga reer Brazil ayaa isagu ka biyadiidsan inuu ku biiro kooxda Zayd al-Ajus dhiraado ee Serie A Talyaaniga oo iyadu xidigan doonaysa inay gorgortan kula gasho bedelka Miralem Pjanic oo ay si aad u xiisanayso guud ahaan waa naga inta wararka kooxda Barcelona channelka Barka 252 fadlan subscribe sar siina share garee warbixintan mahadsanidin